shirkadda dhismayaasha casriga ah ee Daryeel Construction Company oo kamid ah shirkadaha dhinaca dhismaha ee ugu waaweyn Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa waxay ka hirgelisay dhismaha cisbitaalka Haldoor oo maalintii shalay ahayd lagu daafuray isla gudaha magaaladani Hargeysa oo qaab noociisu cusub yahay shirkadu u dhistay waxaana sharaxaad guud ka bixiyay dhismahaas iyo sidii uu ugu hirgalay iyo dhismayaal kale oo casri oo ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliland madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda Daryeel Construction Company Engineer Awil Cali Xuseen waxaanu yiri waxaynu xariga ka jirinaa Haldoor Hospital oo hospitaalkii ugu horeeyay noociisa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqnaa aywa mahadle دكتور محمد حبيب قبوسه دكتور كيني وينا ومانتي إنه هرجليي إسبيتال عصرية ونوع يسوق عند الكهرباء كشرين إن مرلبات أنا قال لي ما قاعد دريال كونستراكشن كمباني واحد اسمه قفر يا رئيستي دريال كونستراكشن كمباني وحنو نتي هي ما قصي في عيه اسمه ياشي هرب بريم هاي ضلكة هي جمديين دمل تحبشيل مول فردر مول دهرم مول دمان تاورز كدهبشيل يتلصم إن مشاريع وين كسعتان حياتي بربرة إن رجابو دمان قبله ضلكة إن دريال كنت وشركة وجودة وين شركة ضلكة وشركة بحسب كريتيريا إن مع توي ترتكي إن مشروعي هردعة هي دي بي وول إسلام كانوا قدام مشاريع جوا وين ضلكة geesta kale shirkadda Daryeel Construction Company ayaa waxay dalka gudihiisa ka sameysay shirkad lagu farsamayn doono agabka furniture-ka oo hab casri ah loo sameyn doono waa kan mar kale Awil Cali Xuseen oo sharaxaya adeegaasi cusub waxaan soo bandhignaa farsamada casriga ahayd iyo tayadii aan ugu taqaanin waxa kale oo maanta idii haynaayo cusub warshado qaybta Daryeel Industrial oo dhawaan madaxweynuhu xariga ka jari doono hadday tahay jaajuur casri ah inaan hore isticmaali jirin aluminumka iyo dhammaan wixii furniture sida albaabada iyo cabinetka insha Allah bishan soo socotay xariga ka jari doonaa waxaan aad iyo aad mar labaad ugu mahadnaqaynaa una duceynaa dhaqtarka Boose ilaahay dhaqtarka waxay tooyeen u barakeeyo macaamiisha dalkeena dabadii gudaha wax leena ka faa'iideysto geestiisa Dr. Maxamed Cabdi Gaboose mulkiilaha cisbitaalka Haldoor ayaa shirkadda Daryeel uga mahad celiyay dhismahan casriga ah ee ay u hirgelisay mahadcelinta koowaad waxaan u soo jeedinayaa shirkadda Daryeel oo dhismahan igu dhiirigelisay igu dulqaadatay jeebkayga yar anoo mar walba ogol waxoodii inaan siiyo igu dulqaadatay meeshii aan dhaliilo inay wax ka bedelaan shirkadda waxaan soo jeedinayaa in Ilaahay garab galo sida ay ii garab galeen kaalintaana ay wax uga geysteen kaalinta muxuu marka ka samaysan yahay isbitaalku waa qaybta dhismaha kaliya ka hadlaya waxa weey koow waa 7 dabaq qaybta hore waa 2 guri guriga hore waa 7 dabaq guriga dambana waa 3 dabaq waad arki doontaan guriga hore 7 dabaq uu ka samaysan yahay oo kan aan hadda fadhinaa wuxuu ka kooban yahay qolal jiif oo 1 sariir leh oo 2 sariir leh oo 3 sariir leh oo mid walba suuligeeda leedahay waa Idris Abdullah Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ah Universal Hargeysa